بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه أجمعين. أما بعد، soo dhawaada walaalaha qaaliga khayrka jecel. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale marka laysku kan soo celiyey. alxamdu lilaahi xamdan kathiiran dayiban mubaarakan fiih, xamdan yaliiqu bijalaali wajhi wacdiimi suldaanihi. alxamdu lilahi daa'iman waabada. alxamdu lilah, ashukru lilah, alxamdu lilah calaa kulli xaal. alxamdu lilahi daa'iman waabada. soo dhawaada walaalaha qaaliga khayrka jecel dhammaantiin. walaaliya waan islaamaya meel kastoo caalamka igala socotaan. ilaahay subxaanahu watacaala dembiyadeena iyo dembiyada waalidiinteen ha dhaafo. inta xanuunsan allaha caafiyo, inta murugaysan murugta allaha ka dulqaado, inta muraad kale muraadkooda khayr allaha siiyo, inta dhimatayna allah u naxariista qabriyada ha u waasiciyo, gadaashoodna alla nama fidneeyo. aamiin yaa rabbi. soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. maalinteena iyo habeenkeena kuwa khayr qaba allah inooga dhigo, kuwa cibaado qurux badan la yimaada allah naga dhigo, kuwa in badan ilaahay subxaana watacaala xuso waqtigooda ku camira daacada iyo dikriga ilaahay subxaana watacaala ha naga dhigo. aamiin. walaalaha qaaligaa soo dhawaada dhammaantiin. waa ini salaamaya. maanta waxaan wadaa qiso aad iyo aad u qiimo badan oo ku dayasho mudan. walaalaha qaaliga soo dhawaada ka faa'iidaysta. qisadan walaaliya hooye ayaa ka sheekaysay. hooyadan waxay tiraahday muddo aad u dheer ayaan xanuunsanaa oo sixir ayaa igu dhacay bay tiraahday. sixirkana wuxuu ahaa bay tiri sixir aan cabbay, oo waxay tiraahday caloosha ayaa la iga hayay oo xanuunku iga hayay bay tiri. meel kasta waan tegay oo si walba waa u raadiyay daawo, waan ka quustay bay tiraahday. alxamdulilah, ilaahay subxaana watacaala wuxuu u waafajiyey bay tiraahday inaan barto saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaa'ishiisa. waxay tiraa waxaan bilaabay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan aad u badiyo tiri salaatul ibraahimiya ayaan aad iyo aad u badin jiray bay tiraahday. waxaa dhacday bay tiri habeen aan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aad u badiyey ayaa waxay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam riyo ku arkay. waxaan arkay bay tiri meel fayl lagu jiro oo laleeyahay dhakhtar ayaa loo gelayaa. meeshiiba waxay tiri faylkii ayaan galay. waxaan ku yidhaahday qofkii wax qorayay anigana dhakhtarka ayaan rabaa. waxay tiri waa la isiiyey, sidii ayaana ku galay bay tiri dhakhtarkii wuxuu noqday bay tiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waan salaamaya. waxaan ku yidhi nabi maxamedo waan ku salaamayaa, waan xanuunsanahay oo sidaa iyo sidaasaa la ii hayaa oo caloosha ayaa laiga hayaa, muddo saas u dheer ayaan xanuunsanaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isoo siiyey bay tiraahday dardaarankan ayuu isoo siiyey. wuxuu igu yidhaahday waxaa soo qaadataa biyo, soo qaado meel kusoo shubo biyo, waxaana soo qaadataa cusbo soo qaado. wuxuu yidhaahday waxaad ku akhrisaa biyahaas iyo cusbada, waxaad ku akhrisaa suuratul baqara awalkeeda ku akhri, iyo sidoo kale waxaad ku akhrisaa labada aayadood ee suuratul baqara ugu dambeeya. sidoo kale waxaa ku akhrisaa aayatul kursi. sidoo kale waxaa ku akhrisaa macwadateynka suuratul naas, suuratul falaq iyo suuratul ikhlaas ku akhri. kadibna biyihii iyo cusbadii isku dhex walaaq, kadibna cab, jirkana ku dhaqo ayuu dhahay bay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. hooyadan waxay tiraahday markaan sameeyey sidii uu idhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam samee, waan ku fiicnaaday xanuunkii intaasoo sanaan la xanuunsanaana ilaahay subxaana watacaala wuu iga caafiyey bay tiraahday. haddaba walaalaha qaaliga ah, riyadaasi maxay noqonaysaa? riyadaasi waa riyo xaqa oo saxa, waayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday man ra'aanii fi lmanaam faqad ra'aanii. qofkii igu arka hurdo oo manaam igu arka wuu i arkay buu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. fa ina shaydaana shaydaanku laa yatamathalu bi, iskama kay mathal yeelo oo iskuma kay ekaysiiye ayuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaan halkaa uga soo tagno riyadaas riyo xaqay ahayd. hooyadaasna ilaahi subxaana watacaala wuu daweeyey. maasha allah tabaaraka raxmaan. qur-aanka ilaahayna waa daawo. aayadahaasna markii laysku dardaro waxaa la dhahaa ruqya sharciya. in badan baa ilaahay subxaana watacaala uu ku daweeyey dadka, waana aayadaha la dhaho aayaatul adkaar ee adkaarta ku soo arooray walaalaha qaaliga ah. maasha allah, mar walbad waa akhrisan kartaa, mar walbana waa isku cilaajin kartaa. maasha allah, ka faa'iidaysta walaalayaal. sidoo kale waxaa rabaa inaan ka hadlo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. hooyadaa waxyaalihii ilaahay subxaana watacaala khayrka ku waafajiyey, caafimaadka ku heshay ee nabi maxamed ay ku aragtay wuxuu ahaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddaba walaalaha qaligaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskan ayaa ka hadlaya can ubay bin kacab radiallahu canhu. ubay allaha ka raali noqday qaali wuxuu yidhaahday qultu waxaan u iri buu dhahay yaa rasuulallah, rasuulka ilaahay ba waxaan ku iri innii aktartu salaatu calayka, rasuulka ilaahayow salligaaga ayaan badiyaa, lakam ajcalu laka min salaati, meeqa ayaan ka yeelaa, qallan barkii ayaan gaarsiiyaa. faqaala wuxuu yidhi maa shi'ta intaa doontid akhri. qaala qultu wuxuu yidhi rubuc haddaan akhriyo ka waran.
oo macnihii rubuc gaarsiiyo. rubuc walaalaha qaaliga waa afar waqtigiisa afar meelood meel ka mid ah. qaala wuxuu yidhi maa shi'ta intaa doontid samee fa in sita haddaad ka siyaadiso buu ku dhahay nebigu fa huwa khayrun laka khayr buu ku yahay. qultu wuxuu ku yidhaahday ubay nebiga nisfun waqtigayga barkiis haddaan rasuulka ilaahay ku bixiyo saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam saligaagana ka waran. qaali wuxuu yidhi maa shi'ta intaa doontid geli fa in sita haddaad ka saa'id yeeshana fa huwa khayrun laka khayr buu ku yahaa. qultu wuxuu ku yidhaha fii thuluthayn laba thulus haddaan geliyo rasuulka ilaahay oo ka waran. qaali wuxuu yidhi maa shi'ta intaa doontid fa in sita haddaad ka siyaadiso fa huwa khayrun laka khayr buu ku yahay buu ku dhahay. qultu wuxuu yidhi ajcalu laka salaatii kullahaa waxaan ka yeelayaa waqtigayga oo dhan baan ka yeelayaa saligaaga buu dhahay. ajcalu laka salaatii kullahaa waqtigayga oo dhan ayaan ka yeelayaa buu dhahay. qaala wuxuu ku yidhi rasuulku idan haddaad ka yeesho oo waqtigaaga dhan aa saligayga ku bixiso idan tukfaa hammaka ilaahay hammigu kaaga qaadayaa wayaqfiru laka dambaka dembigaagana waa lagaaga dhaafayaa. maasha allah tabaaraka raxmaan waa wax weyn walaalaha qaaliga. xadiiskan waxaan ka qaadanaynaa xadiiskan lambar weyn buu gaarsiiyey sayidina ubay bin kacab oo wuxuu dhahaa waqtigayga oo dhan haddaan ku bixiyo mar walba nebigu wuxuu ku dhahay haddaad saa'iidaysato khayr haddaad saa'iidaysato khayr bay kuu tahay haddaad saa'iidaysato khayr bay kuu tahay. markii ugu dambeysay wuxuu dhahaa rasuulka ilaahi haddaan waqtigayga oo dhan ku bixiyo ka waran inta cibaadada kale waajibaadka maahan inta kale haddaan ku bixiyo ka waran saasay noqonaysaa. wuxuu ku dhahay nebigu haddaad ku bixiso idan tukfaa hammaka ilaahay hammigaa wuu kaaga qaadayaa wayaqfiru dambaka dembigaaga ilaahay wuu ku dhaafayaa. haddaba saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad la saaxiibto humuumtan adduunyada hirarhkan adduunyada ee fakar kale ee stress kale ee barbaleen kale ee mustaqbal laga fakarayo ee wax kale ka wixii kusoo dhaafay ka fakaraysid ee stresskii fakarkii xanaaqi iyo buuqi iyo isku buuq waxaasoo dhan arki maysid haddaa saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigaaga ku bixisid. sidoo kale ilaahay subxaana watacaala hortiisa ilaahay wuu kuu dembi dhaafaya oo saxiifadahaagii oo maran baa u tegaysaa. maxaa ka qiimo badan walaalaha qaaliga ah. marka walaalayaal maasha allah saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam naftayda iyo naftiina waa ku boorinayaa inaa maasha allah tabaaraka raxmaan waqti ku bixino inaa maasha allah tabaar wardigeena ku darsano intii awoodeena aan nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salino. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey rasuulka ilaahay oo sidee kuugu salinaana wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay salaatu libraahimiya allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. sidaasun dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iigu salliya ma fahanti walaalaha qaaliga. marka salligaas dheer ee salaatul ibraahimiya ee salaada kusoo arooray ee ataxiyaadka dambe rukni min arkaani salaad ka mid ah waa ataxiyaadku nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa iigu salliya. marka maasha allah way jiraan ataxiyaadyo kale oo soo arooray ee ataxiyaadka laga soo gaabiyey aayadda qur'aanka iyo mid kaloo asagana salaatul ibraahimiya sidaanoo kale usoo arooray wa aswaajihi wa duriyaatihi kaasna wuu soo arooray walaalaha qaaliga. marka maasha allah tabaaraka raxmaan kan ugu fadli badan waa kan salaatul ibraahimiya. marka maasha allah tabaaraka raxmaan hala dadaalo walaalaha qaaliga ah haddaa rabtid inaad guulaysatid maasha allah waqti gasho saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ubay bin kacab oo kale. hooyadaana waa ujeedaan maasha allah nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaa rabtid inaad riyo ku aragtidna salligiisa aad u badi insha allah ilaahi subxaana watacaala wuu kuu guulaysanayaa. khayr iyo farxadda walaalaha qaaliga inay rajaynayaa iyo dhammaanteen inaan wada guulaysano dhammaanteen wala dikri noqono dhammaanteen maasha allah tabaaraka raxmaan ilaahi subxaana watacaala dad ku xiran oo islaam aan noqono walaalaha qaaliga ah oo qalbadooda wanaagsada oo camaal qurux badan la yimaada. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay subxaana watacaala ma fiirinayo sawiradiina iyo sidaa u egtihiin ma fiirinayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu fiirinayaa ilaa quluubikum qalbiyadiina iyo wa camaalikum camaladiina. ilaahay wuxuu fiirinayaa qalbiyadeenna iyo maasha allah saa diinta u jecelnahay iimaankeenu heer ku joogo halka aan diinta ka joogno halka diinta dhaqankeeda ka joogno ilaahay subxaana watacaala fiirinaya iyo camaladana saan u dhaqanno ilaahay subxaana watacaala aan wax ula imaano wax wanaagsan maasha allah iskaga ilaalino macsida iskaga ilaalino qurunkii maalaa yacniga waqtiyadeena aana meel cidlaa ku bixin ayaa walaalaha qaaliga ilaahay subxaana watacaala fiirinaya. marka maasha allah walaalaha qaaliga aan dadaalno qof walbee maasha allah wadadii saxda ahayd iyo wadadii khaldanaydba waa naloo cadeeyay walaalaha qaaliga. marka annaga ay tahay inaan xisaabtano oo wadada saxda ah aan ku toosnaano. khayr iyo farxad baa idin rajeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.